siyaarada labaad ee allaha u naxariistay caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed Sheekh Cusmaan Xidig oo hadda maraysa marxalad gabagaba ah ayaa muddadii ay socotay waxa ka qayb galay kumanaan qof iyo culimaa u diin caan ka ah guud ahaan bagayga Soomaaliya. Haddaba warbixintan kooban waxaan idinkula wadaagaynaa muddadii ay socotay siyaarada jamaacadka culimaa u diinka iyo dadweynaha kala duwan ee ka qayb galay. Siyaarada ayaa si rasmi ah u bilaabatay 2 bisha Muharram 1448 Hijriya oo ku beegneed 17 Juun 2026 waxaana furitaankeeda ka qayb galay jamaacad kala duwan oo ka kala yimid meelo badan oo dalka ah. Jamaacadkii daafurka ka qayb galay waxa kamid ahaa jamaacada Macalin Nuur Maxamed Siyaad oo hogaaminayay Sheekh Hilowle Macalin Nuur Maxamed Siyaad, jamaacada Sheekh Xaaji Ibraahim Yare oo hogaaminayay Sheekh Ismaaciil Mucallin Cabdikariin Xaaji Ibraahim Yare, iyo sidoo kale jamaacada Mucallin Cabdullaahi Maxamed Joqof oo hogaaminayay Macalin Sayid Cali Mucallin Cabdullaahi Joqof. Sidoo kale waxaa jamaacadkii ka qayb galay kamid ahaa jamaacada Xaaji Maxamed Ceeleer oo hogaaminayay Khaliif Mascuud Xaaji Maxamed. Intii ay socotay siyaarada, gaar ahaan furitaanka siyaarada, waxaa kelimada daafurka jeediyay Sheekh Ismaaciil Mucallin Cabdikariin Xaaji Ibraahim Yare isaga oo ku hadlay afka jamaacada reer Sheekh Xaaji Ibraahim Yare. Sidoo kale waxa uu ka hadlay xiriirka ka dhaxeeya labada jamaaco iyo xasuusta Allah u naxariistay caalimkii ummadda Soomaaliyeed ka baxay ee Sheekh Cusmaan Xidig. qabanqaabiyaasha sida ay nala wadaageen siyaarada maalin walba waxaa ka qayb galay qiyaastii 1000 ilaa 1500 oo qof, kuwaas oo ka qayb qaadanayay qaybaha kala duwan ee khayraadka halkan sida joogtada ah uga socday. khayraadkaas oo isugu jira Quraanka Kariimka ah, salliga nabigeena Muhammad, tasbiix iyo qaybaha kala duwan ee khayraadi kale, kuwaas oo loo niyeysanayo isla mar ahaantaana lagu xusayo Allah u naxariistay Sheekh Cusmaan Xidig. Dhinaca kale, intii ay socotay siyaarada waxaa goobta yimid qaar kamid ah culimada ugu waaweyn Soomaaliya, waxaana kamid ahaa hogaamiyaha dariiqada Idriisiya Sheekh Axmedey, Sheekh Cabdiraxiim, Sheekh Cusmaan, Sheekh Xasan Mucallim, hogaamiyaha dariiqada Qaadiriya ee Soomaaliya Sheekh Axmed Sheekh Aways, Sheekh Ismaaciil Mucallin Cabdikariin Xaaji Ibraahim Yare, Sheekh Nuur Cumar Absuge, Sheekh Cabdullaahi Minhaaji, Sheekh Cabdullaahi Xurshow, Sheekh Cabdi Saciid, Sheekh Cali Cibaar oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee ku xeel dheer cilmiga xadiidka, iyo Sheekh Muuse Macallin Xasan. Waxaana sidoo kale xusid mudan inay munaasabada siyaarada oo socotay muddo ku dhow 14 maalin ay ka qayb galeen culimaa u diin kale oo waaweyn oo halkan aynu ku soo koobi karin magacyadooda. Muddadii ay socotay munaasabada waxaa barbar socday muxaadarooyin iyo duruus diini ah oo diiradda lagu saaray siirada, taariikhda iyo kaalintii uu Sheekh Cusmaan Xidig kaga jiray faafinta dacwada islaamka iyo tarbiyeynta bulshada. Siyaarada Allah u naxariistay Sheekh Cusmaan Xidig ayaa kamid ah siyaaraadka iyo isu-imaatinada ugu waaweyn ee ka dhaca guud ahaan dalka Soomaaliya, iyadoo siyaaradan awgeed deegaano badan oo dalka ah iyo sidoo kale dalka dibadiisa looga yimaado. Allah u naxariistay siyaarada Sheekh Cusmaan Xidig oo geeridiisa laga joogo muddo 2 sano ah. Waxaa xusid mudan in maalinta biri oo Talaado ah la soo gabagabayn doono siyaarada sheekha halkan oo ah maxdarka sheekhana waxaa ka dhici doona banaanbax dikri ah oo aad u weyn, isla mar ahaantaana kumanaan qof oo isugu jira jamaacadka kala duwan ay ka soo qayb galayaan. Waxaana xusid mudan in halkaas kelimada khatinka ee siyaarada ay ka jeedi doonaan culimaa u diinka. Halkan ayaana idinkula wadaagi doonaa.